بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ووريسي gaar ah oo aanu la yeelanayno abwaan Nageeye Cali Khaliif. Abwaanka waxaanu kala sheekaysan doonaa oo aanu ka wareysan doonaa arrimo isaga u gaar ah sidoo kale xaaladda guud ee wadanka ayaanu wax ka weydiin doonaa hadduu Allah awood leeyahay doono. Abwaan waan ku faraxsanahay la kulankaaga kusoo dhawow stuudiyaha saddexaad ee warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ونرنتي وكفر حسنا هي إن الفرقان يستودي هذا سد هذا إن شوقه وأنا دوا هي ومحسنتها. وتهي مركهرة أبوان نجاي وكما طبعا تعرف كاجا حسوس قرك دي بدوريج أيات كشهتي لكن تدبدن وداو ذياشة كم ذا أيال لجيا بقى سن أسور الجلين مركز سودو وكما أبوان نجاي. عبد الفتاح النجاي ونكن كورف اليوي. هي قويس كي وحي هاي دتك هذا مدة هذا قرن كله. دقي حافظ قرية سماهر جيسة. أنا قفانا بهاي وكم ذا دتك يكون يسقال بقولي اللحظنك. مركي اللي بدي جمهورية دود أي قوم يستهو كعي مقدشي هرجيس. dadkii xamri yimid calankii soo qaaday waqooyiga ayuu aniga abahay kamid ah markii dambe ee dagaalada iyo burburkii waxaas ay waqooyiga ka dhaceen gaar ahaan Hargeysa iyo Burco iyo magaalooyinkaas ay aad u burbureen dadkii dhulka deganaa intooda ugu badan waxa uu qaxeen dhulkan hawda reserve area la yiraahdo inta ugu badan ay aadeen oo deegaan ahaan ugu dhawaad dad ahaan marka horeba ay aad maaragtay xiriir deegaan iyo dadnimo oo ka dhaxay marka anu carruurtii yareeyay intii qaxoontiga iyo qaranjabka iyo dhibaatada lagu jiray dulcadiyada roor iyo waxaas loo qaxay dadkii meelahaas maaragtay ku dhashay baan ayaan kamid ahaa qoyskaygu ay magaalooyinka dadkii ka baxay ay ku jireen waxaan ku dhashay degmada hadda la yiraahdo Salaxley iyo oo caan ah meel marka laga qabto hawd bari ka xigta deegaanka loo labi sagaal la yiraahdana waxa la yiraahdaa galbeed hawd isagana ka xigta tuuleero halka ku taalo borderline-ka xuduud beenaadka dhinaca talowga ee hadda dhulka Itoobiyaanku ay gumaystaan kamid oo Kaamburaala la yiraahdo dadkii qaxoontiyada iyo maaragtay sida loo kala qaxay halkaas oo aniga ay hooyaday maxaa la yiraahdaa ay igu dhashay tuulada yare la yiraahdo Kaamburaale degmo hadda gumaysto ay haystaan oo daroor leeyahay ayay kamid tahay dhulweynihii awaara la oran jiray weeye dadku si fiican bay ay u yaqaanaan marka halkaasaan walaal ayaan anigu ayaan ku dhashay waqti bay markaa iska qaadatay burburkii iyo dagaaladii iyo wixii maxaa la yiraahdaa wixii meeshaas ka dhacay magaalooyinka markii dambe dadku hadana guryahoodii oo burbura iyo dhulkii baa la iskaga soo laabtay Burco iyo Hargeysa iyo meelahaas dugsigii hoose dhexe Quracdheer ayaan dugsiga hoose anigu ka bilaabay Hargeysa dugsiga dhexe waxaan ka galay dugsi la oran jiray Riis oo isaguna Hargeysa ku yaala dugsiga sare waxaan kaga baxay dugsi la yiraahdo Maxamuud Axmed Cali oo isaguna caan ah oo Hargeysa ku yaala waxaan kamid ahaa ardaydii macadkii luqadaha Nuruddin Intensive English Course ka faa'iideystay maaragtay halkaas ka baxay madaarista Hargeysa ku yaala Quraanka ka faa'iideystay markii dugsiga sare aan ka baxayna waxaan kamid ahaa arday fursad u helay Ethiopia aadan soo oo jaamacad ay u tagaan waxaan qaatay markaa BA ama Bachelor of Art in Political Science ayaan sameeyay waxa weeyaan waa shahaadada koobaad oo la xiriirida waxaana yiraahdaan cilmiga siyaasadda ayaan sameeyay kadibna waxaan ku xigsiiyay masters oo journalism and mass communication waxa weeyaan isgaarsiinta iyo saxaafadda ayaan sameeyay 2016 dhamaadkiisii baan ayaan markaa jaamacadda Addis Ababa University leedahay aan walaal ka baxay Hargeysa ku laabtay markaa jaamacadii waxa ka dhamaadeen jaamacadda Hargeysa ku yaalaan ayaan macallin ka noqday jaamacadda Hargeysa 2018 markuu bilaabmayay ama 17 markuu dhamaanayay late December ama early January
oo ay bilaabayeen faculty of journalism iyo waxaas macallimiintii lagu bilaabay baan ayaan ka mid ahaa jaamacadda Hargeysa. jaamacadaha kale Hargeysa ku yaalana iyagana macallin baan ayaan ka ahaa. inta badan waxaan bixin jiray koorsooyin la xiriira ama political science oo siyaasadda ama journalism, labadaasaan ayaan waxyaabahan ardayda courseska aan waana buuxaan ardayda waa joogaan. marka halkaasaan ayaan macallin ka noqday. sidoo kale tababaro saxaafadeed iyo waxaasaan samayn jiray maadaama uu fiilkan saxaafadda dad maaragtay xoogaa badan ay ku jiraan, haddana dadka takhasusaadkooda ay si uun u yaraayeen runtii welina ay yar yihiin. markii dambena Muqdisho jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Somali National University. adiga ku watay goormaad u soo wareegtay magaalada Muqdisho? Muqdisho waxaan imid Abriil 2017. muddo 6 bilood ayaan joogay waagaas. kadibna Hargeysaan ku laabtay. saan hadda kuu sheegay jaamacadda Hargeysa marka la bilaabay December ayaan ka mid ahaa macallimiintii lagu bilaabay. waxaan filayaa October ayaan ka laabtay waagaas xamar. kadibna waxaan ka maqnaa muddo ilaa iyo abrishii dambe 2018. haddana Abriil 2018 baan mar labaad ayaan xamar soo degay anigoo markaan muddo ka maqnaa. waagaa hore markaa 6 bilood baan joogay. waxaan joogay Abriil 2017 ilaa iyo October. kadibna October 2017 baan ka tegay ilaa iyo maxaa la yiraahdaa 2018 Abriil. Abriil 2018 sidii aan markaa xamar u soo wada degay ayaan ugu badnaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed baan ayaan macallin ka noqday. kulliyadda saxaafadda xilliyada iyaduna iska curdan ahayd baan ku biiray. markii dambena madaxa qaybta saxaafadda jaamacadda oo departmentkaasaan ayaa maaragtay ayaan madax qaybeed ka noqday. halkaasaan ka howlgalayay. deegaankaygu markaa wuxuu ahaa ama xamar ama Hargeysa. ardayda ugu badan ee aan wuxuu dhigi jiray jaamacadduna wuxuu bay ahaayeen kuwa saxaafadda iyo waxaa jira aragti weyn oo la yiraahdo formulation of public opinion oo gadaal bayno laga yaabaa inaynu ka hadalno, laakiin bal raayul caamka sidii wax looga bedeli lahaa iyo maaragtay waxa markaa ardayda saxaafadda ugu badnayd kuwan ayaan wuxuu dhigi jiray. laakiin haddana kulliyadaha kale maxaa la yiraahdaa jaamacadda gaar ahaan kulliyadda siyaasadda oo kale iyagana mararka qaarkood classiyaan ayaan u bixin jiray. marka kulley inahaasaan ayaan kaga bixi karaa su'aashaas. abwaan muddo qiyaastii 100 maalmood ah ayaad ka maqnayd baraha bulshada oo dadku siyaabo kala duwan ay ku hadalhayeen, adigoo markaa uga tegay gabay iyo xasuus qorkii dibad wareeg. xageed marka jirtay, halkaysa joogtaa hadda? horta dee baraha bulshadu nolol maaha, meel lagu noolaado maaha, meel maaragtay qofku lecture lifekiisa uu mararka qaarkood uu marsan karo wey. markii hore anigu Soomaaliya baan joogay, meel kale kuma noolayn. haddana weli Soomaaliya ku noolahay. al-shabaab ayaad la joogtaa marka? waa jira warkaas. maxaad ka soo doontay? waa su'aal weyn wey. horta dalkan Soomaaliya la yiraahdo anigu sidaan aaminsanahay waxa ka soo dagaal caalami oo midaba kala duwan leh ayaa dalka Soomaaliya ka socda. dalkii Soomaaliya la oran jirayna wuxuu galay xaalad balkanization waxa weeyaan in la qurbo wax la qurbo. su'aasha markaa aad maxaad shabaab ka soo doontay, waxa ka horeysa maxaad xamar ka soo doontay? and I think that was the basic question ay tahay in la isweydiiyo. maxaad xamar u timid ayaa waxay ka horeysa maxaad shabaab ka doontay. anigu markii Soomaaliya ay gashay xaaladda balkanizationka waxaa dhacay qoqob afkaareed, waxaa dhacay qoqob dadnimo, waxaa dhacay qoqob xataa qofku damiirnimadiisa maaragtay qoqob noocaas ayaa la galay. balkanizationku waa in wax la qoqobo oo maaragtay global hegemony-ga dhacay super powerska iyo waxa is ereeriyanayaan waxay abuureen Soomaaliya inay noqoto meel ay isha si weyn ugu hayaan. marka burbur noocaas horta walaalow ayaa Soomaaliya ka dhacay. marka waxa yimid waxa weeyaan rag dantooda isku haysta. rag dantooda isku haysta. maxaad ka wadaa? waxaan ka wadaa Soomaaliya meesha la yiraahdo global powersku danahooda ilaashanayaan. hadda diyaarad baa dusheeda ka guuxaysa hadda aan hadlayo anigu.
diyaaraddaa guuxaysaa danteeda ilaashanaysa u joogtaa anigu dan hallay ma u joogto waayo anigu dan uma diranin saas daraaddeed nin hadraawi la odhan jiray raxmatullahi caleyh ayaa maansoo hadda daakiraadeedu ay khaldayso ayaa wuxuu ku daray markuu ka hadlayay dunida iyo sida laysu riixriixayo dadku isu riixriixayaan dheeraad nin waxaa walba adduunyadu intay saa usoo jirtay dheeraad nin dooniyo nin ku dhaga xaqiisoo dhacsanayay baa jiray buu yidhi hadraawi this is the equation marka qolna dheeraad bay doonaysaa aadamaha qolna xaqooday ku dhagan yihiin waxay doonayaan waxooda iyo xaqooda iyo xuquuqdooda inay ku dhaganaadaan oo aan la dhicin Soomaaliya waxay ka mid noqotay marka walaal marka hadalka kuu soo koobo meelaha ay rag doonayaan inay dheeraad qaataan ama maxaa nagas door ka bilow dawladahan dariska ka bilow global powers ka kuwa la yiraahdo ku dar waxa soo dhan waxa la yaala wixii super powers iyo hegemonic iyo waxaas raadinaya meel ay isha ku hayaan oo ay doonayaan inay dantooda iyo iyagu sida ay doonayaan waxooda ay ka fushadaan taasi marka aniga waxay ila egtahay welina ay ila egtahay horena ay igu leeyahay inaan aniga dantayda ahay ummadayda dadka Soomaalida dadka muslimka dantoodu inaan sidaas ku jirin saas daraadeed baraarug baa aniga igu jiray xaaladaas inay tahay xaalad in laga hortago maaragtay mudan marka Hargeysan joogay mainstreamka afkaartu siday u taalay iyo wixii anigu aan rabay ay noqdaan isuma eegaan taas marka horta aniga xamar waxay ahayd markii miir qabka inoogu dambeysay meesha caasimadda inoo ahayd marka afkaar bal revolution in Soomaali ay baraarugi karto oo cadawga kala duwan ee magacyada kala duwan leh laakiin hadafka isku mid ah leh inta badan in laga horto taasaan walaalaan ugu xamar maaragtay aan u imid saasan xamar ku joogay markaan ku soo ururiyo warka markaan warka walaal ku soo ururiyo gabay waxa jiray la oran jiray dibad wareeg oo ay ku jireen gobonimo daraadeed markii digasha ii gaadhay waxaan deedeeyay markaan dawladnimo waay gobonimo daraadeed markii digasha ii gaadhay waxaan deedeeyay markaan dawladnimo waay dugaashiga cadaawaha markii darajo loo qaatay dhagihii daboolaa markaan daawo kala qoostay Soomaalida damiiriye markii fahanba loo diiday dildilaacan sii fiday markaan gooha damin waay markii uu dadaalkan wadiyo samihii duugoobay dacwadii islaamnimo markii hoos u day weyday doodii warkaygii markaan gabayadii daayay dirir iyo cilmiye markay hadal ka soo daashay aniga duruufaha markii dani walaalaysay waxaan duurka awgeed u galay waa daliil adag dibad wareeg 2021 way halka marka waxa ku jira qofkii ehlul aqli uu fahmi kara wixii anigu aan xamar ka rabay inaan ka dhiso mar kale waxay muuqatay inaan ka dhismi karin saasan shabaab su'aashaada jawaabteedu inaas boqol maalmood ka hor waa tii dadku ay aad uga hadleen oo la falanqeeyay waytaankaaga dabcan adiguna war qoraal ah ayaad ka tagtay dadkii ka hadlay waxa kamid ah mas'uuliyiin kamid ah dawladda federaalka wasiirka gudaha oo kale Axmed Macalin Fiqi intabana way ku eedeeyeen ama way ku dhaliileen hadii warka uu ku soo gaaray maxaad ka oranaysaa horta adfaxo rag mabaadiibu ku kala tagay warkuna inuu cadaado ama magacyada aad sheegtay ha noqdaan ama magacyo kale ha noqdaan horta ragni mabaadiibu ku kala tagay waxa lagu kala tagay dalka Soomaaliya la yiraahdo iyo ubadka yaryar hadda dhalanay iyo mustaqbalka halkee loo hogaaminaya iyo sidee loo hogaaminaya ba horta walaal ayaa lagu kala tagay soo garanaysid maadaama taa lagu kala tagay ninka maanta raali ku ah in dalkayga la qabsado in diintayada la bedelo in dadnimadayada la dooriyo soo wal garanaysid nin inta diidan magacyo ugu yeedhiyay waxa jiray الله إلهي هل كان تانا دافع واحد شري لا قبل إلى هذا بلن قبل إلى بلن وحو أنتي أنا ميلهن شوقي وحن قبل شيء دونا أنتو ذا بدن أنت ميلهن هذا شوقي بقول كمال مود شيء يسوي حنا وريه وحكم يدوي بلن وحو كهلا إنك أنا جانا بعدي يقان سواء أفيين توبيان أما أفيين أم صوم أما قال هذا سود وشيء مقعيدة كل الدول اللي دلع عودة كتشرن نرجع ذي الدلع سويقان مقعدون على كاو حبان كلا بلامايا وحكولو الله بلامايا نينك دنتيسا إلى شنع reer galbeed dawladda daris
oo halkan u jooga inay moogtay laba waxba isrideeya international lawga waxay ula baxeen iyo strategic national interest waa isrideeya caamada markaa sharciga waxbaa loo sheegaa inta badan laakiin dawladahana waxay ilaashanayaan waxa weeye waa danahooda national interest-kooda strategiga bay ilaashanayaan marka dawlado iyo diyaarado iyo ciidamo iyo maxaa la yiraahdaa dad ilaashanaya jiritaankooda nin af Soomaali adeegayaasha af Soomaaliga ku hadla ee ninka ag jooga ee ninka meesha wuxuu socdaana diidan magacyo bixinay ninka horta waxba kula ballamay koow ninka diyaaradan lehna isna waxba kula ballamay wallahi ninka inuu adeega af Soomaali ku hadla uu noqdo iska diiday isna waxba kula ballamay marka la ila gabaygaas aan wax kaaga sheego si saddex ballan wuxuu nimay yahay dalkii baayay ee sharafti baabi magacyada aad sheegaysay inta ka agdhow nimay yahay dalkii baayay ee sharafti baabi nimay yahay xaqii baalmaree geesi saga bayray nimay yahay waxay ina badeen laga bogsoon waayay nimay yahay adoonsiga bartee biliga loo saaray nimay yahay bahaysiga kufriga buuni ku ahaaday buuniga waxa la yiraahdaa PhD qof markuu qaato mar af Soomaali la yiraahdaa waa buuni bahaysiga iyo kufriga iyo la socodkiisa iyo la joogiisa ayay buuni ku noqdeen intaan barbaartiya shacbiga soo balbalina tan dadkayga abaabulanayay waxa iga kala daadsan iyo baylahdayda intaan isku hagaajisanayo intaan barbaartiya shacbiga soo balbalinayay berberiyo dhulkii aan lahaa bixiye ciidayda xabashiga bilaash ugu fasaxa booramiye sayla barasaabadii herar la dhigay biilasha u geeya boosaas iyo xeebihii cadow ku sii beera bay dhabo wayaanaha qabsaday bahal walaalaysta barxadii Kismaayo afmadow gaala kula biira federaalka waxa loola baxay ceebta barakeey federaalka waxa loola baxay ceebta barakeey baadiriga Roomaan fadhiya xamara soo booqdo waayo wala kala tagay mabaadii buu ku kala tagay baadiriga Roomaan fadhiya xamara soo booqdo hadba daarihiisii burburay beesa kaga qaata madaxweyne iyo baarlamaan baadil ku heshiiyo walihi badhaysiga ahaa bacadka meeraysto kambeynka waxa wala bixin walihi badhaysiga bacadka meeraysta hadba kii sanaatida baxsada boqor ka soo saara prime minister iyo kii ku xigay beela kula haada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheegay warada soo garanaysid prime minister iyo kii ku xigay beela kula haada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheegay nin kasto balaayada ka diga baadi ku asteey nin kasto balaayada ka diga warna jidkaasi kii ina dhaqaayay ma aha yiraahda magacyadii iyo shaambadihii ay haysateen la dhaca xorba u tihiin nin kasto balaayada ka diga baadi ku asteey bari iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarto way iyagu bari ma laha iyagu bari ma laha noloshooda bari kuma jirto waa maanta way nin marka aan bari lahayn nin bari la meel ma wada joogi karo marka wuxuu nin kasto balaayada ka diga baadi ku asteey bari iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarta balwadaha gumaysigu yaqaan baratan raacdeeya baqti iyo waxa loo hamoon baari ku ahaada gudnimada hadii baaqi haray bari ma gaarsiiyo gudnimada hadii baaqi haray haduu baaqinimo yahay idin harsan yahay oo wixii aanaguna aan garanayo Soomaalina ay taqaanay ku dhex jirteen ila wala iswada garanaya la isu dhuuman maayo gudnimada haduu baaqi idin harayo aad doonaysan inaad ka qalin jabiyaan waa leedin ogol yahay bari ma gaarsiiyo ka qalin jabiyo horta nimanka warkayga aniga ku aadan waa intaas waxa ku soo haray meelaha kale wuxuu baana waxaan u leeyahay kufriga soo baraarugay Bush iyo Barack iyo hadda Biden la joogo waa saddex madaxweyne oo soo maray Bush iyo Barack iyo hadda Biden la joogo idinka buruud sheegtay iyo baawar iyo xooga birmageydadii iyo adaalaayay bilistiya idinka bareedhaxna yiri culiyo baaruude billahi wixii aad rabteen waa barkuma taale ballan wuxuu inoo yahay dilka nooga barateen safety bilaawaha intan kaaga boganayo badda dhura ilaa naga banada bada u sheekeey dhulka booba beeraha khariba beledka aafeey bidakeena kii hore bedela wax isku baandheey warnamayo meesha idinka haystee wixii aad doontaan idinkuna bidakeena kii hore bedela wax isku baandheey idinkana shaqadiina wata baana waxaan u leeyahay raga jooga booraha ee alla ilaahay bushaariye wariyo waa bayaan culus ee baabullaahi iyo baynun hay ciidankii badare samir badiya baahida dugsada baraha xoogeeya nafta bixiya diinta u birmada beegsi wacan yeesha
fulihii xaqiiqada ka baqay baaqa maqashiiya baryadii ilaahiya tashiga bila kusoo jeeday buu yidhi kaasna waxa weeyaan ragga wax iska celinaya ee doonaya dadnimadooda iyo dalkooda iyo diintooda waa saddexdii ballan marka way laakiin nageeyow xaqiiqada marka loo hadlo dowladda federaalka waxaa ka mid ah siyaasiyiin wax soo bartay qaarkood PhD da aad sheegaysay wata oo aad garanayso dadkaas aqoon-yahanada ah wax lagu qanco innaba miyaad ka weysay waxna waa magacyo waxna waa mabaadi anigu magacyo sheegi maayo magac waxba aniga maartay waxba macna gaara ma laha waxa la sheegaya mabaadi waxaan ku uri meeshan laba fikir baa isku haysta waa fikir doonaya inaan sii jiro anigoo identity-gayga iyo magacayga iyo diintayda iyo dadnimadayda iyo qofnimadayda leh iyo fikir kale oo doonaya dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha xoogga weyn waxay qaateen aragti ah ummadaha wixii aan iyaga ahayn in la burburiyo dabeedna khayraadkoodana la boobo diintoodana la bedelo anshaxoodana la burburiyo dadnimadoodana ciddii ka hor timaadana inay dhulka hoostiisa joogaan go-aankaas la qaad dadkan markaa aad ii sheegaysaa adeegayaal af Soomaali ku hadlaabay noqonayaan sababtu waxa weeye waxa ay ka shaqeynayaan ma aha waxa danta waa ilmihiisa ma laba wax baa kala jira waxa walaal jira wax maanta inaga adiga aniga inteena nool dan u ah laakiin ubadkeena u daran iyo wax inaga inoo daran laakiin ubadkeena bari dan u ah waxa maanta labadeena inoo danta waxa laga yaabaa inay tahay inaan contractiyadii iyo projectyadii iyo wixii iska qaadano maartay baabuur qufulan iyo guriye ay si ka daaray nolol saasa aynu iskaga noola waxa laga yaabaa inay taasi inoo dan tahay inaga laakiin ubadkeena u daran tahay ubadkeena way u daran tahay sidoo kale haddii maanta inagu aynu halgano oo wixii aan inoo qalmin iyo ninka dheeraadka doonaya yur la yiraahdo haddii doonto inaga haba inagu qaraaraatee ubadkeenu gobernimo iyo sharaf iyo ciisi bay ku noolaanayaan ubadkeena danota soo garanaysa waxaaba ka sii daran kuwa hadda jooga ubadkooda u danana kama shaqeeyaan wax iyaga u danana kama shaqeeyaan maxaad saa u leedahay deemayn Ethiopiana fayeen loo noqdo iyo meelihii aan wixii aan sheegay in laga shaqeeya qofka damiirka leh ay ubadkiisa danta u tahay waa kee ma jiro ma dhici karto abwan waxaad ka hadli jirtay inta badan arrimaha Soomaalida qadiyada Soomaalida wadaniyada ayaad xoog saari jirtay hadda maamulka aad ku biirtay ee al-shabaabna waa jihaadiyiin see la isku waafajinayaa marka jihaadkii iyo wadaniyadii horta haddii aad uga jeedo wadaniyad haddaad uga jeedo Soomaalida dadka la yiraahdo muslimiinta in la mideeyo tafaraaruqa iyo burburka ay ku jiraan intii suurtagal laga dulqaado hadda taa uga jeedo oo Soomaali weyn ay taad ka wado iyo wadaniyada taasi waa noble idea aragti dahabiyo dadka muslimiinta la mideena Soomaalidu ka mid yihiin hadda wadaniyada taas uga jeedo anigu dawladnimada Soomaaliyeed raadinay dawladnimo weysaysata way midaan weysaysanin ma dawladnimo weysaysta way first identity ama huwiyada ugu horeysa ee dawladnimada Soomaaliyeed ee raadinayna waxa weey in Ilaahay taqaan weysaysato qofka Soomaaliga identity-ga ugu horeeyo leeyahay waa islaamnimo identity halkaas ka bilaab marka dawladii ama gabayadii aad sheegaysay ama waxaas la raadinay waxay dawlad Soomaaliyeed Ilaahay taqaan weysaysata Soomaali weyntu ay noble idea ay tahay maxaa la yiraahdaa meeshii ugu dhaweeyay waandir cashiirada kala qarabin aanu kuwan ehelkayga aanu ururinaynay maaragtay intaas way marka islaamnimo iyo Soomaali weyn in la raadiyaa waaba istaageerayaan ama istiidayaan way abwan qofka sahantaga dadkiisa been uma sheego waraa'idu la yakdibu ahlahu maxaad aragtay markii aad timid wilaayadka islaamiga ah way waad mahadsantahay walaal Cabdi Fataaxo horta de markii waadeen mid ma
researchka marka la sameynayo طبعا waa yaqaanaan maaragtay School of Social Science dadka u badan si fiican bay u yaqaanaan anuu meeshan horaan indhahayga ugu arkay oo waan arkay fikrahan waxay u taagan yihiin intii aniga iga filid waa akhri inna waaqaca ay sheegay inna taariikhda la soo maray iyo sooyaalka ayaa sheegay marka haddii la yidhaahdo maxaad aragtay alla ilahee maxaad aragtay intaan la odhan maxaa maqnaa horta ha la yidhaahdo maxaa maqan ama anigaba idheh ama dadka kale dheh maxaa maqan waxaa maqan wax kasta oo ummadnimo ay lahayd ayaa maanta maqan maxaa caddeyn u ah balkanizationka ka dhacay the Somali state halkee weeye tuulo Soomaaliyeed oo maanta tuulada ku xigta dabka ka qaadata madaxdee weeye maanta madaxda Soomaaliyeed ee mustaqbalka berri ka fikiri kara tuuladee weeye tuulada Soomaaliyeed ee maanta ka madax bannaan faragelin ajaanib ama mid ciidan ha ahaato ama mid warqadeer iyo diblomaati yar oo la soo diray ha ahaato halkee weeye ma jirto laga bilaabo Kismaayo iyo gobolka Gede intiisa badan gobolka Baay gobolka Bakool gobolka Hiiraan ilaa iyo Maxaas la gaadhay ciidamada Itoobiyaana baa fadhiya maamulada meesha ka dhisan in nin waliba intuu maaragtay ciidamada ajaanib ay isku dayay kursi ku fadhiistay wili boqor baan ahay wixii Maxaas halka xagga ka xigana diblomaasi iyo maaragtay ambassador yar oo la soo diraba ayaa lagu maamulo labadii kun iyo maxaa la yiraahdaa 17 bay ahayd nin kasta xiniyuhu gubaan markaan ka hadlay oo deegaanada joog marka walaal waxa maqan ummadnimo horta maqan taas way halkan marka waxa jira gabay la yiraahdo gaafmeer waxa weeyaa nin wax eegayo oo cilmi baadho soo garanaysa gaafmeer marka wuxuu soo ururinayaa maxaan arkay kow oo uu cusub yahay isagu halkan baad gabayadan aan ku sheegay halkan gabayadii aan ku curiyo way taas waa kow talabaad waxa weey dadka halkan joogay dagaalamaya maxay raadinayaan waa laba soo garanaysa labada ujeedadu ayuu gaafmeer ayuu soo ururinay haddii markaa aan qayb kamid ah aan walaal ku sheego jirta maamaha Soomaaliyeed oo tiraahdo habow badan waa lagu dalbartaa habow badan waa lagu dalbartaa haddii aad istira magaaladan ka tago magaalada inoo xigta tago dadna 5 jeer wadada kale dad kolba dhinac u socoto maalintaa waad rafaaday laakiin dhul badan baad baratay dad badan oo dhalinyaro ah oo sidaas baa jira marka wuxuu yiri alla ilaahay gabaahir banaan aniga baa gabaygu maartay qaybta hore oo iga hadlay wuxuu alla ilaahay gabaahir banaan gocasha waa liiday gunaadkii fogaaday iyo waxaan ciilis kala gooyay wixii ciili kala gooyay gashi iyo markii aan xideer dhab ugu geeraaray goobiyaal markii aan waqtiga gacan ka soo waayay garbadu markii aan xujada geed walba u joogay guubaabadeedii markii leeyla garan waayay hadba gelin dhaxaadkii markaan gogosha haaraamay gucul orod wixii aan tashiga gooni socotoobay hadba waxaan u gaaf meeri jiray waa wax gudaweyne waa ka gadoodkii shacbigu helay godkiisii helay godkiisii taariikh ma guurana ayaa dhaaxba gunudeena geliyada wixii ay dhigteen laga gayoon waaye idinka adduunyada gilgilay labada geesood ee gobonimada Soomaalida magac u goysayna waxaan laabta uga guuxaya gabaygu waa hiile waa gogol dhigii maansadii iyo gibil xirkaygii iyo marka hore salaan gaar ah baa soo gudbinaya inkastoo gudoodiga habeen guura lagu raagay inkastoo haliyay geesiye gabano loo waayay inkastoo duruuf guuna iyo gudoba loo qaatay inkastoo gadaafiye dib iyo guudi hari waayay markii ay galoofowday baa gama adiideen markii ay galoofowday ayaa gama adiideen garmadoobayaal iyo nin raga gumaca loo dhiibiyo hadba guuto iyo gulufku xoogowye gabadanada iyo fooraha ugu gabowdeen goobaha jihaadka iyo runta loogu gaamuray galadaha Ilaahay xaqii rag isku soo gaariye galadaha Ilaahay xaqii rag isku soo gaariye guyaal baa waqtiga gaar u tiriseen dhaxa guhaadi afxumo eed ka gudubteen
dhaxaa hasheennii gurnayd godol tidhaahdeene dhaxaa xaqiiqadan guracan garereflayseene dhaxaa gufaaciyo col iyo geylan huriseene galdalooladii beenta iyo faankibaa go-aye gaaladu wixii ay dhiseen laga gol roonaaye waa kaa gabaabsiyey waxay xoogga geliyeen afrikaanku way guurayaan maalmo gudahoodii guddoon faraxle iyobaa ku xigi dhaadashiyo guule guddoon faraxle iyobaa ku xigi dhaadashiyo guule gocor iyo midkii liita iyo fuluhu waa gowe gaashaanka waxa loo ogaan geesi diriireede golcastiyo kaliilahaba waa loo gubta hanyoone gaagaabsan mayne xilbaa guudka noo sudhane ninkii garasho diidaba nin baa meel ku gowriciyo gaagaalayaal iyo magaan waa la gees mariyo garbaduub waxaa loo xidhxidhi gaas dhagoolahae guduc iyo caddaba waa la miri labada gooroode sooyaalka meeshuu ka galo guniyo caadkeedii asalkaba gurguurtiyey intii gaalo naga raacday gumaadkii shisheeyaha intii ugu gargaaraysay garmaqaatayaaliyo kuwii ina garaacayay umarada gumaysigu dhalaa qoorta laga goyne galabyo habeen baa la furan quruxdii goobweyne gobti reerugaasdiini iyo guurtibaad heliye gaajada waxaa kaa afurin golo ansaareede gudoodiga waxaa lagu ballamay xamar gunteediiye gurmadkii saleebaanada iyo garab ma weydeene geediga waxaa lagu nagaan buurihii golise iyagaa garaadado midnimo gaarhka ka ahaaye gacmo furan waxay kuu ogaantan iyo guumayse guriga hargeysiyo burciyo guban intaa taalla gaashaama waxa kaaga iman rag iyo gaadiide ogaadeen gar duur iyo dhulbay geesh ka soo kicine gudabiirsiiye ciisayaal kuma gariifeene gobannimo waxaa loola tegi gaarisiyo hawde innagaa galbeed iyo xoreyn gobolladeeni iyo guud ahaanba soomaalida hiil inoo geliye gacaltooyo soo raagtay baa herar la gaadhsiine gondariyo waxaa loo socdaa tan iyo goojaame gumus iyo gambeeluhuba way soo gadaal noqone towxiidka waxaa loogu geyn gubadadoodii gebagaba waxaa noo ahaan geeri sharafeede hadba geesigii noo kacaa raadka sii guriye gaalada intii soo hadhaa gibir la weydiine gunno iyo heshiis beene iyo gows wax lagu qaato hagob lama islaamnimo ninkii gunya dhaafsaday waxaan markaa uga jeedaa gabayga gaafmeer waxa weeye ninanu xaggaasaan u soconnaa soo garan mayso walaal maxaad aragtay waxaan arkay dad raba inay halkan u socdaan raggaan arkay halkanay u socdaan tan waa wixii aniga awowgay raadin jiray oo ka horreeyay raadin jiray waa wuxuu asalkaygu abtirsiintaydu halkay maray jirtay halkan weeye aniga abtirsiintaydu amisom iyo uganda iyo burundi iyo maaragtay balkanization waxaas ma marta aniga abtirsiintaydu waata laakiin taariikhdu mayaanay bedelmi karin oo madaxda qaar iyo dadka qaar waxay yiraahdaan taariikh beeyo waa la walaaloobay oo waxbaa isbedelay seed u aragtaa arrintaas anigu dadka isdhiibay kuma jiro ninka doonayay inuu yidhaahdo waxbaa isbedelay dhinacii naga soo horjeeday waxba iskama bedelin isagaa doonayay inuu anaga dhinacayaga wax ka bedelo siduu rabay inuu wax u bedelaana waxa weeyaan si isagana dilaysa anigana i dilaysa kuwa naga dambeeyayna dilaysa soo garan maysid taariikhda lama qoro iyadaa isqorta saas daraaddeed ninka yidhaahda waxaan doonaynaa in la bedelo waxaasi waa maaragtay waa siyaasadihii hore traditionalka ahaaye maaragtay ummaddu waa inay integration iyo isdhexgal iyo waxwada waxaas ninka waxaa sheegaya wuxuu rabaa inuu milmo wuxuu rabaa in nala liqo waad fahamtay haddaa waa nala liqo in yar baana soo jeed annagu ma rabna in nala liqo soo garan maysid marka ninkaasi ninkaan mabaadida ku kala tagnay weeye waya dadka sida gaarka ah uga hadla arrimaha halganka ama xaaladda waddanka halgan gaar ahaan dadka kommentiyada kaa soo dhibtay oo kale marka la fiiriyo waxay qaarkood leeyihiin abwaanageeye dhibaatada meeshay ka jirto waddanka waxaa ka mid ah waqooyiga halkaas muxuu jihaadkii iyo halgankii uga geli waayey maxaad ka oranaysaa su-aashaas aragti gumaysi weeye qofka soomaaliga ah ee dadka qaarkood waxaa laga yaabaa si aan ku talagalahayn ama aan fahmahayn inay dooda noocaas uga soo baxdo laakiin aragtida asaliyan aragtida sidaasahay qofka ay doonto waxa ka timaado qof ahlul caqliya qof maaragtay aan faham badan haysanin qof ku talagelaya oo dan isagu kale siday doonto aragtida waxa ku timaado laakiin aragtida lafteedu aragti gumaysi weeye waa aragti doonaysa inaynan labadeenu dabka kala qaadanin ee sacii madoobaa iyo sacii caddaa iyo wixii sheekooyinkii soomaalida ay wax noqdaan taas wey waxaa walaala ku xiga
marka la dhiganayo introduction to political science waa galaaska ugu horeeya ardayda school of political science markay isdiiwaan geliyaan chapterka koobaad ee loo dhigo marka political science iyo waxaas loo sharaxa iyo waxaas loo sharaxo sub unitka ugu horeeya loo dhigaa waxa weeyaan waxa la yiraahdo elements of state waxa weeyaan tiirarka ay dawladnimadu ku istaagto way soo garanaysid kuwa security-guna waxaas wax u dhow bay qaataan maxaa elementska marka aad doonayso inaad nidaam samayso marka aad doonayso waxa koobaad waxaad u baahan tahay dad soo garanaysid inaad dad haysato marka dad hesho waxa labaadeed u baahan tahay waxa weeye waa dhul waa territory waa meeshii fikirkan iyo aragtidan aad xambaarsan tahay aad ka hirgelin lahayd marka waaqaca Soomaaliya marka qofka maanta fahamsan wuu fahmi karaa sababta anagu halkan u joogo dadka halkan dhulka deegaanadan Ilaahay maartay uu ku beeray Ilaahay sharaf buu ayuu gaar ah buu horta siiyay dadka dhulkan degan halkan diintooda lagu badbaadinayo oo dadnimadooda lagu badbaadinayo oo maxaa la dhahay jiritaankooda dambe lagu badbaadinayo inay dhulkooda ku soo dhaweeyaan oo Ilaahay ku bulaaliyo dadkan Ilaahay sharaftaas horta siiyay Ilaahay baan cid doona sharafta siiyay taas dhulka intiisa kalena waa loo socdaa soo garanaysid marka qofka fahamsan sida state loo sameeyo sida maamul loo dhisay iyo sida aragti loo riixaa elements of state qofka fahamsan walaal dooda muxuu hebel halkaa u tagay doodaasi sidaas ma Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam reer ma ku aha tiirarkiisii dawladnimo Maka way ku dhismi kari waayeen soo garanaysid tiirarkiisii dawladnimo xagee ku dhismeen Madiina ku dhismeen marka tiirarkiisii dawladnimo markuu Madiina ku dhiso Ilaahay Madiina maxaa la yiraahdaa oo maartay arintaas ku sharfay ayaa marka islaamku oo halkaas ka bulaalay oo meelaha kale iyo adduunka markaas ama kana la tagay marka waxa weey qofka sidaa u fikiraya wixii doonto isaga ha ka ahaat laakiin aragtidaas aragti dhaladaho qof Soomaali leeyma meeshan jooga waa Soomaali meeshan u socdaa waa Soomaali meelo ka durugsanna waa u soconnaa hadii Ilaahay yiraahdo soo garanaysid marka walaal waxa weeyaan muxuu hebel halkan u tagay suurtagalnimo wax la yiraahdo ayaa wax lagu dhisay suurtagalnimada marka qofka raba inuu wax fahmo waa fahmi karaa sidaas waa tahay aad baad mahadsan tahay abwaan in badan ka hor wareysiga waxaan akhriyay gabayadaada qaar waan daawaday waxaad xoog saartaa xabashida maxaa ku daba dhigay walaal waxaan isleeyahay xabashidu horta gobolkan geeska Afrika la yiraahdo waa gobol aad u muhiim ah siyaasad ahaan dhaqaale ahaan istiraatiiji ahaan waa maaragtay waa gobol ethnicity kala duwan dad maaragtay afafkoodii qoomiyadahoodii wuxuu kala duwan yihiin waa very fertile land waa dhul maaragtay khayraad badan ka buuxo very strategic saas daraadeed gobolkan inaga taariikh dheer oo inaga horeysay baa jirto inagu hadda taariikhda bilaabay mayn nimanka xabashi la yiraahdo waxay calanka u sidaan kow diinta kiristaanka calankeeda inuu saydareeyo dhulkan hamigoodu wakaas anigana hamigaygu waxa weeye haddaan Soomaali ahay calanka muslimka tawxiidka la baasidaa horta taa waa isku haysanaa anagii xabash iyo wixii la socdo dan la waa isku haysanaa soo garanaysid marka taariikhda dheer oo dhan waxay noo sheegaysaa waxa la isku haysta waxa weeye waa dal iyo diin labadaas la isku hayaa waxay rabaan dadnimadooduna inay korayso diintooduna korayso ayagana waxay rabaan inay diinteeduna korayso dadnimadeeduna ay korayso midba wuxuu rabaa inuu kala liqo soo garanaysid boqolkii sanadood ugu dambeeyay intii horeba marka laga yimaado boqolkii sanadood ugu dambeeyay wixii doonaaba ha sababaan laakiin Soomaalida la riixay waa tamaanta marka qof Soomaaliya ka keeni karta maxaa la yiraahdaa waxyaabaha hadda maqlaysi kartay faraha badan le aad maartay maalin walba aad maqasho saas daraadeed walaal waxa weeyaan aniga wixii awowgay u difaacanaya soo garanaysid wixii awowgay u difaacanay taariikhda dheer aanu leenahay wixii ay noo dhigtay ayuun baa su'aashaadi weydiisay haddaan jawaabteeda weeyaan walaal waxaasaan daba socdaa anigu soo garanaysid iyaguna way daba socdaan
way daba socdaan waxooday rabaan inay hirgeliyaan aniguna taydaan rabaa inaan hirgeliyo markaa taariikh baa noo dhaxaysa diin baan isku haynaa dal baan isku haynaa dad baan hadda isku haynaa soo garan maysid isu awood sheegasho assimilation iyaguna waxay rabaan inay annagana milaan annaguna waxaan rabnaa inaan iyaga milno waa sidaas ula wayhay daawadayaal weli waxaan dhex muquranaynaa waraysiga aanu la yeelanayno abwaan nageeye cali khaliif abwaan hadda waxaa taagan arinta badda Soomaaliya heshiis xabashidu waxay leeyihiin bad dekad dhul ayaa naloo saxiixay maxaad ka oranaysaa siyaasa u aragtaa walaal waxaan u arkaa sidii qof Soomaali ah oo miyir qaba uu arko ayaan u arkaa waa arrin halis weyn leh soo garan maysid waa arrin ay tahay inaanu qof Soomaali yeelin waa arrin diiday in maanta anigu aan yeelo runtii wax aad u qaraar weeye saas daraadeed jiilkii Soomaali ugu gunsanaa taariikhda inta la garanayo ayaan aniga iyo adiga iyo inta maanta noole aan noqonayna haddii waxaasi suurta galaan marka qof kasta oo Soomaali ah miyir qaba wixii uu ka aaminsan yahay ka aaminsana waa meeshii la rabay in waqooyi lagu liqo kadibna Soomaali oo dhan lagu liqo kadibna taariikhdii hadda aan sheegay la kala difaacanay aan aniguna kor u socday isaguna hoos iyo xeeb u soo socday meesha maanta doodo ka taagan tahay waa Zaylac marka waa Ruush iyo Mareykan waa oo ku kala murmaayo Moscow iyo Washington waxay la mid tahay hadda aragtidan ninka la Putin oo Washington dul fadhiisto oo dadna in Mareykan la weydiiyo sideed u aragtaa in Washington uu Ruush ku yimaado saas oo kale occupation soo garan maysid marka saasaan walaal anigu ayaan manar in la yeelana ma qof Soomaali inuu arintaas yeelo ma suurtagal ma inuu qof Soomaali arintaas aqbali karo baato ay leedahay hadafku waa in Soomaalida la liqo in la liqana de marrabo jiritaanka waa identity mahma aan fiicnayn baa jirta laakiin Soomaalida ku mahmahan waxay yiraahdaan nin gabadhaada raba inantaydaan ku siiyay guurso kuma jooganayo soo garan maysid waxa la rabaa dekad wax lagala soo daga maaha waa dhul iyo bad la qaato soo walaal garan maysid anna wax la qaata maahay marka Ethiopia waxay rabto waa waxa aan ku sheegayo waxaan ku sheegayo marka qofkii Soomaali arintaas isku day inuu aqbala dhimashadiisa uu gacantiisa ku saxay marka ma u qalantaa Muuse kale wuxuu yiri diyaaradda Ethiopia kale ayaa waxa share nalaga siinayaa caalamka ayaa nalala garab galaya arimahaas ma u qalantaa baad isleedahay heshiiska ma se loogu garaabi karaa walaal ma aragtay frankly speaking dhul horta aan si rational aan wada hadal dhul la bixiyo ama maxaa la yiraahdaa bad la bixiyo sini weyn marka dad la sii xagga la aqoonsanayo Ethiopian Airlines iyo maxaa la yiraahdaa sheerar xaafada iyo hebeliye magacyo ma aragtay lagu qaato I think ma aragtay that's a crazy idea waa arinan aan qof Soomaali aanu maqli karo madaxda dawladda federaalka marka taa laga yimaado aad bay arintan uga hadleen waliba si kulul waxay yiraahdeen waan ka difaacaynaa tobadeena sidoo aragtaa arintaas 2011 ayaan gabay tiri la yiraahdo wali lama xoroobin adaan dhooxin xaajada ee xudur buu gumaysigu qabsaday xalay tafiidkii xabashigu wuxuu soo wadaa xulafo shaydaane waa xeebahayga waxay niman xaraasheen in rag xaqiisi la dhacay taa xamili waay waa xeer inoo yaal hadaa xamar ilowdaana xaragana ma naawilo intuu xaal sidaa yahay mar haddii xakamihii go'ool la isxiniin taabtay
xarakooyinka adigu ogtahay malo xaaraan waxaan ka wadaa waxa weeye waxaa la isku haystaa dilaalka ayaa qaadanaya heshiis baa lagu yahay Soomaaliya in la iibiyo to garan misuula yaa ku ah wixii aan ka hadlayay waanay kugu dadku waa kala baxeen markay dadku walaal kala baxeen rag u mabaadi ku kala tagi wixii adeegayaasha af Soomaaliga ku hadla aan ku sheegay waxay heshiis ku yihiin in Soomaaliya ay dilaalka qaataan oo iibiyaan heshiis bay ku yihiin waxa la isku haystaa waxa weeye dilaalka yaa qaadanaya dilaalka qaadanaya marka niman dilaal isku haysta ayaad magacyadooda Cabdifataax oo iigu celcelinaysaa mabaadi iyo aragtiyo dal difaac iyo dawladnimo difaac iyo ummad difaac ma aha laakiin waxa la isku haystaa maaragtay dhamada meeshaas ka imanaysa iyo maaragtay sida ay kala noqon karto wata qadiyadan marka dadka Soomaalida ah aad bay uga hadleen dareenka ay ka bixiyeen iyo siday uga hadleen maxaa kaaga baxay dadka Soomaalida ah si guud waa bogaadinaya dareenka arintaas ay ka muujiyeen waa bogaadinaya waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin iyagoo oo goob jooga min dhaxalkooda la qaybsado iyaguna ay gudnimo iyo dulaysi iyo gumaysi ay ciidooda imakaba way ku jiraan waxa ka daran ay ka dhacaan dadka si guud waa bogaadinaya dadka reer waqooyina si guud iyo si gaar ah iyagana waa bogaadinaya arintaas ay gundahooda la doonayo inay ka bilaabaan to garan mayso laakiin intaas kuma filna ana waxaan qabaa intaas ma ku filna waxa ay muuqata dadku wali inaanay fahmin halistu inta ay leegtahay halistu inta ay leegtahay inaanay wali dadku fahmin baa ay muuqata saas daraadeed waxaa jirta oraa aad u caan baxday oo maaragtay Ethiopiaanku waxay rabaan iyagoon xabad ridin inay waqooyi qabsadaan iyagoon xabad ridin inay waqooyi qabsadaan demographic change inuu dhaco 2015 markii aan gabaygii dhayga tirina dadku rabana intaa waa ka hadlayeen waxa socda saas daraadeed khatartu inta ay leegtahay dadku inaanay wali wada dareemin oo miisaankaas aanay helin ayaa horta ay muuqata gabay baa waxa ku jiray loo jiray goobiyaal 2022 adduunyada guyaal gabi ahaanteedba markay garasho diidaba rag baa doortay geeride gobonimadinkii doonayay geesi baa kacay marka gowrac lagu aarsaday guuli dhalataa waxa taala guudkeeda sudan gororku waa dhiig adduunyada walaal marka sidan oo kale ummadaha ay isugu gardaroodaan ee damacu halkan oo kale uu gaadho rag baa niyo naftooda horo oo dhiigooda ummadooda ku badbaadiya wixii marka maxaa la yiraahdaa school of realism the power politics way waa muruq iyo xudud iyo wax inaad wax iska celin karto saas daraadeed waxa walaal ay muuqata dadku aragtiday qaateen waa maaragtay waa ku bogaadinaya laakiin diyaar garow baa lama huraan in la diyaar garoobo ayaa walaal lama huraan nimanka hoggaanka waxaan leeyahay iyo kolley cimri uma harin inaanay ceeb ka tegin oo ay ummadda ceeb uga tegin ayaan iyagana u sheegi lahaa haddii ay maqli karaan ceeb noocee ah sidee ceeb uga tegayaan ummadda walaal in zaylac maanta la qaato anuu ceeb ka weyn oo qof Soomaaliya ku dhiclayd ma aqaan marka ninkii taa hormuud ka noqdo wuxuu ka tegay waxaan qof isaga ka horreeyay ka tegay waa tahay abwaan waxaan ku soo jirnay arinta badda iyo Etoobiyaanka qadiyadan zaylac iyo badda wax gabay ah oo aad ka tirisay ma jira walaal waxaa jira gabay la yiraahdo
dhabanahays la yaab wey, la yaab wey. waxaa lala yaaban yahay waxa maanta maaragtay Soomaali dhulkeedii ka dhacaya si guud iyo si gaara arrintaa hadda aad carabka ku dhufatay. marka gabaygaa dhabanahays la yidhaahdaba ayaa jira. muxuu si gaar ah diiradda u saarayaa? dee nin dhabanka iyo gacanta isa saaray nin yaaban horta wey, taas waa koow. nin aan fariisan. ta labaadna waxa weeyaan dadka arrintaas ay khuseysay Soomaalida si guud, si gaara dhalinyarada oo ah dadka maanta mustaqbalkoodii uu taagan yahay waxaas iyaga ay khatarta ugu weyn ku yihiin dee xooggii dalka iyo ummadda iyo dalkana maaragtay inay waxaa iska diidaan. intaas walaal ku saabsan yahay. marka dhabanahays wuxuu yidhi shareecada ninkii dhinac maray iyo dhoohan keligeeda dhugmanimaan lahayn iyo ninkii dhuuntay shareecada ninkii dhinac maray iyo dhoohan keligeeda dhugmanimaan lahayn iyo ninkii dhuuntay haw cabanee dhal shisheeye iyo kii habraday lama dhagaystaana dharaariya wixii nool tashigu iga dhammaan waayey ma dhakoolo ruuxii niyada hawle dhibaysaaye dhafarka iyo soo jeedku waa dhaaxa abidkaye hadba waxaan la sii dhololayaa dhaawacaan ahaye dhafooradu waxay ila goteen waan dhadhabayaaye waa dhabanahays xaajadaan dhuux ku leeyahay niman baa dhudhuubaada ka riday sidigtii dhaameele dhaxalkeeni bay tuuganimo dhaqaya siisteene iyadoo wixii hore u dhacay dhiidhihari waaye saa kana dhibaatadu hadday tarihii soo dhaaftay xeebaha dhammaantood haddii xabashi loo dhiibay hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey alla ilahe dhigaaliyo war way kala dhaqaaqeen macnaa hadal xilligeeda waa dhama dhalinyarada Soomaalida wuxuu yidhi hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey alla ilahe dhigaaliyo war way kala dhaqaaqeen dhalinyarada Soomaalida ay hay dhaliiline dibadaha kuwii dhoofay oo waa fariin dhabahe mar haddii han lagu dhaato iyo teeni dhicisowday dhacdiidka iyo jiifka waa soo dhadhamiseen warniyo haddii maaragtay iska fadhi iyo iska waa la soo dhadhamiyey dhacdiidka iyo jiifka waa soo dhadhamiseen ficilkiinii baan dhowrayaa dhumucda weynaaye waxba yaan caleentii la dhilana ku dhacanteene waxba yaan dharaariya habeen muran ku dheeraane waxba yaan adduunye la dhaqan dheefta xoolaha waxba yaan dhaqaaliye la helin dhegiyo maamuuse waxba yaan aroosiye la dhigan dhaadashada guure waxba yaan dhabeel iyo la qabin dhudi filkeedii dhadig iyo labood hawsha way naga dhaxaysaaye hadal dhiga dhufaysyada camire daaya dhalanteedka dhayal diida hawsha u dhaqsada socodka dheereeya dalka dhiciya dhiilada u kaca dhamacu taagnaada dhagaraha gumaysigu yaqaan dhabu daraaseeya dhelalaabadii iyo sheekadii dhinac ka weydaarta dhiifooni kama maarantee dhiir run uga dheeraada gumbaa dharaga lagu seexiyaa dhowni ka ahaada gubanimo dhib baa kaa xigtee samay ka dhuubnaada u garan maysid gumbaa dharaga lagu seexiyaa dhowni ka ahaada gubanimo dhib baa kaa xigtee samay ka dhuubnaada halla waa dhambaal aanu diray dheega xabasheede cid ku soo dhaweysa iyo haddaad dhaanta filanayso intaad dhulkayga iska qaadato dee haddii aad is leedahay waa lagu dhaantayn doona sacabkaa lagu garaaci doona halla waa dhambaal aanu diray dheega xabasheede cid ku soo dhaweysiyo haddaad dhaanta filanayso ummaddaga nuglaatiyo haddaad daraqna moodayso dhawaaqiina iyo sheegashadu nooma dhaadhicine dhasalaalaq iyo baanisuhu way iska dhalanteede waa isu soo baxayo bad baanu helay wax badan baa laga soo sheegay nimankaas aynu hadda hadalhay dhasalaalaq iyo baanisuhu way iska dhalanteede dhulka iyagu agoon maaha iyo dhaxalka yaallaaye guutooyinkii loo dhisaa dhooban furimaaye dhalandhoolka iyo raacdaday gocasho dhuubteene dhirta iyo waxay weheshadaan dhaxanta jiilaale kumanaan is wada dhaarsadoo dhiiran baa maqane naabaalada dhacaya iyo dhamacda baaruuddu ahdigaynu meel dhiganay iyo dhimasha weeyaane dhiig iyo waxaynoo ballana diliya dheecaane nimankaa badda doonayana fariintaydu waa intaas dhalinyaradana intaas kale wata abwaan waa gabay runtii aada u dhumucu weyn waxaad ku baaqday in hadalka ficil loo bedelo ayaad ku baaqday intaanan horay usii socon gabayga horta adigoo halkeebuu kaa soo galay waa tii la oran jiray haddaan gabayga uurkoo bukiyo arami kaa keenin asaan oog jacayl iyo kalgacal kugu ijbaaraynin afka unbaad ka leedahee tixuu arar ma yeeshaan halkee kaa soo galay gabayga cabdifataax walaal marar kalena waxaan umalaynaya inaan sheegay horta gabaygu waa iska heyba un weeye
hadduu ahaan lahaa wax ninkii cadhoodaaba oo gabi karo dad badan oo cadhaysan baa jooga waxba kasoo bixi la'yahay soo garan maysid hadday maaragtay dhaxal iyo maaragtay dadkii kaa horreeyay waalidiinta ahaayoo gebi jiray ay tahayna waxaan is leeyahay reere gaarahoo gabyaa unbaa soomaalida ku jiri lahaayoo dee iyagu kala dhexdhexla oo mid aabihii gebi mid awgii gebiyo deedna sidaa maaragtay waxaan iyagu is leeyahay waa iska hibo waa qaybaha ilaahay dadka wuxuu qaybi qayb ka mida halkaa meel uma dhaafin karo waa tahay markii la rabo dee in wax la bedelo dadku waxay leeyihiin dad iliid ah oo hormuud ah oo dadka hogaamiya culimada ka mida aqoon-yahanka ka mida maxaa fariin ah oo dhinacaasna aada u diri lahayd? anigu waxaan isleeyahay horta waa la qasban yahay qof kastoo si rational u fikira wuxuu arkayaa maanta waaqica hortiisa yaalla in la qasban yahay. Optionskan haysanaa ma badnaba, optionna badanoo aan kala doorano ma haysano. haddii danta guud ay burburtona mid gaarhiniyo ma jirayso, suurtagal maaha inay jiri karto. Optionadaan haysano oo dhanna way soo urureen ilaa inta ugu badan leh ayay soo urureen. waxaa jiray gabay intii aan hadda meelahan joogay qayb ka mid ah caawa gabaygaas ma kuu marin doona laakiin qayb ka mid aan kuu sheegi doona. wuxuu ku saabsan yahay haddii waxa jira ay sidaa u sii jiraan ay ahaadaan waxaa la yidhahdaa qof kastaa jidka uu ku qasban yahay maaragtay. wuxuu inta hargeysa kufrigu xamar ka heesaayo hooyaalaydii gabayga iyo dhaaftay hadalkii iyo hagardaamo kama dhowrsatay iyo hadiya laayaani meeshaan u socda waa halkaas ya waa lagu qasban yahay meeshaan ku leeyahay hagardaamo kama dhowrsato iyo hadiya laayaani hoombaro waxay soo wadaan kali hor joogaayo hoosaasintaa nagaga daran soo hulaabsiga ninaan ogahay ninkan duulimaadka igu ah inuu la socdo ayaa wuxuu rabaa inuu ii soo hulaabto ii hoosaasiyo cadow. raggii hadda aad sheegaysa hebel baa baaq soo saariyo hebel baa waxaas hoosaasintaa igaga daran soo hulaabsiga ee goobannimo dabaleel lagama helo waana la hubaayo hanta toobsi kama maaranti iyo higil colaadeede markii ay huluulaha gashaan huray naftaydii heec iyo magaan dowladnimo kuma haleeyeen. nin wax lagu haleeyaa niyuu jira heec iyo magaan dowladnimo kuma haleeyeen anigu baa hantaaqiyo dhib iyo jiidhe halistii iyo harka galay habeen iyo dharaar waan hamiyayaa habaqlahan isdhaafiyo warkiiyo hugunka yeedhaya hal xidhaalahiiyo sheegashada lagu haliilaayo hanjabaadda iyo baanisaha hilowga ciideenna waxa la isku haystaaba waa sidigti hoobaane. soo garanaysa waxa la isku haystaaba waa sidigti hoobaane waa lama huraan ya waxa la isku haystaaba waa sidigti hoobaane waa lama huraan dhiigga iyo hiilka diriireede. ma garata abtax warqi walaal waa lama huraan optionadu ma badna waa lama huraan. marka walaal waxaan uga jeedaa gabigu waa dheer yahay oo marka aad leedahay dagaal baa qasab ah walaal qofka waa la qasban yahay maana options kuma badna qofkii isagu surrender sameynaya isliibayo hoggaansanay ma ku jiro waxaan ka hadlay. laakiin xal kale siyaasadda ayaad soo baratay adduunka mararka qaar siyaasadda ayaa wax lagu xaliyaa diblomaasiyadda wax lagu xaliyaa fursadaas ma haysana miya haddaan nahay Soomaali? in diplomatic relations marka la leeyahay maaragtay bilateral ayaa wada hadlayo wax isu sheegayo negotiation sameynayo maaragtay isu tanaasulayo horta waa power balance inuu jiro waa principle-ka koowaad waa kaas in labadaa qolo inaanay qolo moodahan inay qolada kala liqi karto. cidaad ugu leedahay marka diblomaasiyad waxa lagu xaliyo waxa weeye waa cid aaminsan inay liqi karto. marka qof rababa inuu liqo sidee buu negotiations iyo maaragtay mediations iyo maaragtay gorgortan san u wada geli karna wuxuu rabaaba inuu liqo horta de waa inaanu horta waa inuu halkaa tagaday eeg meesha la isku haysta marka de zeylac way soo garanaysid marka nin zeylac igu haysta wada hadalka de iga furan in gurigayga igu haysta iyo caruurtaydii iyo maxaa la yiraahdaa ma u malaynayo. marka waxaan u jeedaa walaal waxa weeye waa lama huraan ya dhiigga iyo hilka diriireed meeshaan u socday maaragtay gabayga aday xusuusisay halkaas ahayd. marka niyahow anigu walaal waxaan isleeyahay kow waxaa lagu qasban yahay ya waxaa walaal lagu qasban yahay in arrintaas ficil lagaga jawaabo horta waa lagu qasban yahay waa kow in dadku ay diintooda iyo dadnimadooda iyo maxaa la yidhaahdaa jiritaankooda iyo maxaa la yidhahdaa naf iyo damiirkooda
inay difaacdaan horta niyo waa lagu qasbaya. waa individual level analysis. hadda waxay maraysaa waa qof kasta individual level analysis. waa yaqaanaan ardayda dhigatay School of Political Science. waa individual level analysis ayay maraysaa. taas intaas walaal waxaa ii raaca dhalinyarada waxay yidhaahdaan mahmaa Soomaaliyeed baa jirta. waxay yidhaahdaan hooyo kasta gorgoriyo dhowr tukay dhashaa bay yidhaahdaan. gorgorka waxaan leeyahay maanta niyo maalintaadi waa maalintii waxa socda aad diidi lahayd wey. berri ma jirto. waad qasban tahay. taas intaas odayada waxaan leenahay waxba idinkaa naga yaqaan. markaan warka soo ururay in bal faragelinaha kaliya waxaas meel iska dhigay. hadda meesha qadiyadaasaan ka hadlayna anu laab xabashi idinkaa naga yaqaan. waxaanaan ku hadlayna idinkaa noo sheegay. sooyaalka taariikheeda idinku dhex jira ayaan ka baranay waxaanaan ku hadlay. waxaan leenahay cimrigiin ceeb iyo godob iyo gunnimo aan deegaanada iyo dhulka iyo dadkaas aan ka suulin maaragtay ha uga tegin. taariikh cusub oo gunnimo ah noo qorin. culimada iyaga waxaan leeyahay waa taqaanaan diinta maanta halkay wax marayaan waa taqaanaan. mas-uuliyadda idin saaran nin waliba waa garanaya. ninkii isagu iska diida mooyaane. nidaamyada dadka nidaamyada ma askarta u ah ciidamada u ah waxa noocaasa waardiyey gunnimada la raba in ubadkaaga iyo gurigaaga iyo waxaaga lagu qaato ninka ilaalinayo waardiyaha. waxaan leeyahay 2 jeer fikir. twice ayaad u baahan tahay inaad fikirto. waxa aad difaacaysaa gunnimo adiga la raba in lagugu gumeeyo inaad difaacato. aniga waa ila qaraadha. marka walaal intaasaan leeyahay iyagana. ugu dambeyntii marka ragga dagaalamaya dhagartaa mar hore ilaahay uu ku baraarujiyey. iyagana hawl weyn u taalo. hawl aad u weyn ayaa u taalo. waxaa jira gabay la yidhaahdo diilaliyo oo safarkaygaan meelahan ku marmarahay ayuu ka hadlayaa. ayuu ka dhashay kama hadlaayo laakiin socodkaygii meelahan aan soconahay. wuxuu yidhi danta naca dagaalada u kaca celiya duulaanka dabka huriya duunyada la baxa diriirta xoogeeya u dib jira daleelada xamila diifta ku ahaada dalka dhiciya diinta u halgama damaca weyneeya harka diida daaraha ka taga dumar ka dheeraada gudka dumiya daafaca u gala meel fog ugu daata dadaal bixiya heensaha dugsada duurka ku ciraysta cirka dega daruuraha huwada diiradlaha booba digtoonaada fiirada ku dara daran u taagnaada. idinkana shaqadaas ayaa idiin taalo. daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay abwaan nageeye cali khaliif. tan iyo intaanu ku kulmi doono waraysi noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.